kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa 5 gool iyo eber kaga badisay Napoli kulan saaxiibtinimo oo labada kooxood ay ciyaareen. Jurgen Klopp iyo wiilashiisii ayaa maalmahan ku jira bandhig aad u wanaagsan iyadoo dhawaana 4 gool iyo gool ay kaga badiyaan Manchester United. Klopp ayaa wajiyo badan ku soo gala ciyaarta isagoo badi dhammaan ciyaartoyda kooxda tijaabiya waxayna dhamaantood ay ku soo baxeen xidigo isfahamsan oo classic ah. Labada gool ee Liverpool qaybta hore waxaa dhaliyay ciyaartoyda kala ah James Milner iyo xidiga lagu magacaabo Georginio Wijnaldum waxaana lagu kala nasay labadaasi gool. Alisson Becker oo ciyaarta dhameystay gabi ahaanba ayaa sameeyay bandhig fiican isagoo baasas fiican sameeyay kubadana badbaadiyay inkastoo Napoli aysan sameynin fursado fiican. sidaa darteed markii la soo laabtay Klopp bedel ayuu sameeyay. goolka saddexaad Mohamed Salah ayaa dhaliyay, goolka afraad waxaa dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Daniel Sturridge halka Alberto Moreno goolka shanaad u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool. sidaa darteed 5 gool iyo eber ay wiilasha Klopp mar kale ku badiyeen taas oo muujinaysa isbedelka ay Liverpool sameysay iyo diyaar garowgooda xil ciyaareedka cusub ee 2018-2019. waad ku mahadsantahay daawashada videogan fadlan ha ilaawin like iyo share kadibna inaad daado subscribe mahadsanid.